maamulka iyo howlwadeenada madaxtooyada Soomaaliya iyo ciidanka madaxtooyada ayaa ka qayb galay barnaamijka isxilqaan oo dib loogu dhisay xarumaha danta guud sida warkan mar kale ay ku faahfaahinayso wariyaheena Maryamo Xuseen Jibriil. dhismaha ka socda tiyaatarka qaranka iyo maktabada ayaa howlwadeenadu ka qayb qaateen iyaga oo 6 saacadood oo xiriir ah si wadajir ah uga shaqeynayay soo nooleynta xarumaha danta guud ee dalka. maareeyaha tiyaatarka Abaan Cismaan Cabdullaahi Guure ayaa warbaahinta u sheegay in meel fiican uu marayo dhismaha hoyga murtida iyo hanuuninta ee National Theatre. sidoo kale wuxuu tilmaamay in shaqaalaha madaxtooyada ee maanta shaqada lahaa iyo dhammaan shaqaalaha dawladda ay meel fiican soo gaarsiiyeen dhismaha tiyaatarka. maamulka madaxtooyada ayaa dhismaha tiyaatarka uga qayb qaatay agab isugu jira shamiindo, badiilo, sakeelo, xaaqimo iyo waliba farkeetooyin kuwaasi oo lagu wareejinayo guddiga gacanta ku haya dhismaha tiyaatarka. shaqaalaha maanta ka qayb qaatay barnaamijka isxilqaan ee ka socda madaxtooyada ayaa waxa ay gaarayaan 600 iyadoo oo 200 oo ka mid ah ay ahaayeen ciidamada ilaalada madaxtooyada. sidoo yahay dameerka baalka maxalliga runtii isxilqaan maanta waxa weeye waa cod hadalka uu yiri madaxweynaha message-kiisa ayaana maanta qaybteena ayaan ka qaadanaynaa. runtii waa shay aad noogu weyn shaqaalihiina kala harin mas'uul iyo shaqaalihi kulli maanta ayay ka qayb qaateen. waan u jeedaa sidoo hawshu u socoto si wanaagsan ah. ilaahay ma had iska leh. maanta waxaan si dhab ah u xaqiiqsaday inaan qarankayga Soomaaliyeed u shaqeynayo anigoo dhoobada iyo dhagaxaba guraya anoo ciidankayga la shaqeynaya anoo shaqaaleena madaxtooyada ka shaqeynaya. waxaan ku faraxsanahay inaan maanta qarankayga u shaqeynayo annagoo ka dhawaanayna baaqi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. saakay 7 barkii waan halkaan nimid annagoo ka jawaabayna baaqi madaxweynaha ee isxilqaan. shaqooyin badan baan ka qabanay meeshaan. qiimeynta guud waxa ay soo baxday shacabka Soomaaliyeed inay u bisil yihiin inay iskood wax u qabsadaan u baahan yihiin hoggaan ku haga hawshan sida ay muuqata tiyaatarka qaranka iyo masraxafka qaranka iyo maktabada iyo garoonka. mashruucaas ka kooban 4 xarumood ee muhiimka ah waa guuleystay baan dhihi karaa. maanta waxaa halkaa iskugu nimid in aan ka shaqeyno tiyaatarkii u jeedaan madaxweynaha oo noogu baaqay barnaamijka ah isxilqaan. waa aragtaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ka qayb galay maantana annaga iyo shaqaalihi madaxtooyada aan ka qayb galayno barnaamij fiican waaye oo lagu dhisi karo dalka. waxa aad ugu mahadsan madaxweynaheena maadaama oo noogu baaqay barnaamijkan isxilqaan annagana waajib nagu tahay inaan fulino. shacabka iyo ciidanka hadday sidaan u wada shaqeeyaan dalkuna waa dhismayaa amniguna waa noo soo noqon doonaa insha Allah. dhalinyaro dhammaanteen dhulka wuxuu naleeyahay demani ya luuliyo waa dhambayga buuxe ma dhisna ma dhowrna dhaqaalaha kor u dhignaa. barnaamijka isxilqaan oo 26 Julaay ee sanadkan uu ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sir dardar leh uga socda wadanka iyadoo ay kaalin weyn ka qaateen shaqaalaha rayidka ee dawladda. Maryamo Xuseen Jibriil, Som News TV, magaalada Muqdisho.